baan ugu faraxsanahay shirkii baarlamaanka oo kii sagaalaad sidoo gudoomiyuhu inoo xusuusinayay waxaana aad ugu sii faraxsanahay inuu shirkan sagaalaad oo magaalada Laascaanood uu ka dhacayo meelaha aynu ku kala qabqabsanay xusuusin mayno in badan aynu jabhadahayna waaba ahayd meelaha aynu ku shirayna magaalada Laascaanoodna waa magaalo madaxdii gobolkan Sool laakiin wada shaqaynta Soomaaliland ee nagala shaqaysay yaa sabab u ahaa magaalada tan inaan dagaal uusan ka socon innaka gudaheena waqti badan ma hayso waxaan iyana ku darayaa wada hadallada hadda muddo waa noo socdeen 2 sano ka badan waxyaalaha nooga suurtagalay ana kuwa aan tilmaamaya kamida wadankii oo isu furmay laakiin colaadii hore mid kaba culus yaa kaabiga inagu haysaan inaga fogeyn haddaan khaatumanahay iyo haddaanu dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Caynahay dagaalkaana lagama talagelin war iyo wacaalo uma hayno dhulkana dadkaasaa leh dhulka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa leh maamulada isku dilaya maamulada isdila oo dhulkan isku dila Talyaaniga iyo Ingiriiska baa noogu dambeeyay waqtigan aanu joogno qarniga 21 in maamulo midkoodna dhulkan uusan lahayn inay ku dagaalamayaan nama anfacdo ma soo dhaweynayno talada dhulkan dad kale baa leh waxa taaraada cidii aanu gacan saar la yeelanayno oo arrimo siyaasadeed iyo meel aanu yool noo noqotaan ku wada hiranno maamulka Puntland jooga waqti badan bay khaatuma gelisay iyo SSC ba waqti badan baan gelinay waxalaala waxaan ka haynaa ma jirto abtirsiinadan cusub ee la roorayo waxaashu ma shalay bay dhalatay waxaashu ma awrka lagu kacsanaya mise dano ma guurta ah yaa jira annaku dhulkana annaka leh taladiisana haddaan laga qayb gelin ama haddaanan hormood ka ahayn meel u gaadhaya ma jirto waa hadal Somaliland naguma muquunin karto Puntland warkeeda badaa wada hadallada aan Somaliland la leenahay markii aanu muddo dhowr sano ah sida dastuurka khaatuma uu qorayo oo ah meeshii danaheenu ay galaanba waa aadaynaa cid kale aanu fasax uga qaadanaynaa ma jirto ayaheeda iyadu ka tashato war cidna magan ugama nihin xamar baanan uga ahayn hargeysaanan uga ahayn garow waanan uga ahayn meel kalena iska badaa war waxaanu leenahayna waa naqaan waxa waajibka nagu ana waa naqaana bahashatan hadda lala humbaaleeynayo waxa in taariikhda la ogaadaa haboon waray abtirsiina cidina hadda nool la qimi mayso war dagaal aan joogin haddii Hargeysa lagaga dhawaaqo oo qabiil la dagaalamayo war dantayadu kuma jirto war dadka ficila lama tuso war annaka diidan war dad aanan waxbaba isu ahayn waa marka si dhaba loo hadlo oo inta aanu dagaalka ku jiray hadda waa maqlaya ariye iyo baba la ururiyay oo abaar dhaceen oo arigi iskaba yaraaday yaa la ururinaya war dadka la leeyahay waxbaad isu tihiin wax shan saamood noo keena ama $1 ama $500 ama $100 qadiyadayda ku bixiya ma aanan arag abtirsiinadanooba ma aha markaan doonaan boorka ka jafaya war manihin war waxaan dantayada ahayna loogu horseedi maayo warna laguma beer la xawsanayo
war annaka go'aansanay markaanu intaasoo dhan isu soo maray Somaliland wax yidhaaha maamulka Khaatumaan la shiraya oo la xaajoonaya oo arrimahana dhex yaalaanu diyaar u nahay iyo kanaba soo gaadhin iyo international community-ga u sheegeen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo IGAD mid walba waxay nagu yidhaaheen waa idin soo socdaan Somaliland arrintaasina ku dhawaaqi doonaan waxaanu idinku boorinaynaa inaad soo dhaweysaan wada hadalka warsaasaanu annagoo miir qabna oo waxa dantayadu tahayna aan ka marin habaabayn yaanu go'aansanay Somaliland wada hadalla inaanu la gallo waana noo socdaan waa nagu daaheen waa nagu jactadiyeen laakiin wax dhabaa noo socda wada hadalla dhabaa noo socda ballama horana waaba jireen duruufana waa jiraan waxaanu ku siinayna ugu cudur daarayna maaha waa waaqaca jira waa ka geel didii loogama hadho wada hadallada waa wadaynaa wada hadalladaasu meel fiicanna waa marayaan waa saluugnay habka loo wado iyo inaan dhaqso hawsha loo kala jaraynin laakiin meel kale magaalo kale hayb kale dawlad dhexe cid haysa dadkaasaanu la hadlaynaa xitaa haddayan Khaatumo rabin warbahashatan la leeyahay jabsin baanu idiin aragan Soomaalidu waxay tidhaahaa ciyaarta haddaan xeelo ku jir maxaa habeenkii loo tumaa war cidda rabta dadkan danahooda waa la yaqaan cid kale ama qabiil ha ahaato daaroodka sankana laga marmarinayo ama harti ahaato war cid kale miyaad haysaan oo diyaar u ah inaynu wada hadallo in danaha la wada leeyahay meel looga soo jeesto anigu ma hayo inta meelood waana qori doonaa haddii alla idmo inta jeer ee aanu aragnay dadka Puntland ee haybta la yiraahdo ama ismadooda ha noqoto ama siyaasiyiintooda ha noqoto ama baayac mushtarkooda ha noqoto ama dadaanu macarufnay ha noqoto wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba intaanu aragnay ee kala hadalay wali hadda waayada 2 sano aanu nimanka hadal la wadnay wali lama gaadhin tiradooda waranaka cid nagu hanuuninaysa waana nahay waa ahayn waana ahaan doonaa waxaanu nahay iyo nasabnimadayada war cidna kama baryayno laakiin waray mid baan su'aal baan idin weydiinaya halkan deris waxaynu ka nahay gaalkacayo war Umar Maxamuud iyo Habargidar ama Umar Maxamuud iyo Sacad hadday magaalada isku dilaan ma laynaga talageliyaa war in la yiraahdo ciidankeena dagaalama mooyee ma tahay haddii dhulku waa naga dhaxeeyaa ee aan isu nimaadno miyaad haysaan warkaayagii dhulkayagii baanu uga joognaa hadday maamul yihiinna waxaana laynaya ee haddana aanan hubin inayna daynaya waa ciidanka Puntland warooy magaalada tan waxyaalaha aan ka maqmaqlaya waxayna dhaqaya ma aha war abtirsiinadan lagu soo haliilayo ee la rabo in lagu barakiciyo ee inaanu danaha iyagu ay nagaga lumaan war cidna ka akhrisan mayno kamana dhageysanayno war dadka dhulkan u dhashay ariga la sheegay shulxulxud la yiraahdo maka ilbixi waay ma arigaasaynu ka liidanaa war waxa kan war waxay ina haysta waxana haysta waxay ku dhaanto war shaydaanka aan iska naarno war aan ku soo dhawaano warkii aan Khaatumo rabino war dana kale oo dadku ay wada leeyahay iyo dana ma guurta ah hanti ma guurta ah naga dhaxaysa lahayna ummadda wada leedahay ku deeq baranayo bixinayo de laga akhrisan maayo cidii dagaal aan annaka anfacayn noo horseedaysana kama yeelayno waligaaba qabiil ka dhigo oo qabiil dhulbaanta dhexdiisa dadka dhexdiisa waligaa ku meehanaaw war laga akhrisan maayo dadkaasuna dagaal aan danahooda ahayn ma gelayaan
kuwaasaa ugu dhow Hargeysa jooga war anigu waxa qori bilada maxay tukaraq loo tagay war tukaraq gambadhe 20 kilomitir bay u jirtaa Soomaa waxa ciidanka Somaliland gambadhe oo awalba ay joogeen oo dalkoo dhan joogeen waxa inta la duulay tukaraq loo tago 20 kilomitir u jirta anu ma garan war haddii ciidanka Somaliland aanu heshiino maamulka Somaliland war annaka diyaar oo xuduudka in bixin la tago annaka diyaar oo laakiin haddaanan heshiin oo waxaanu wada leenahay aanan dhisan anagu dagaal ha shaqo kuma leeyin waayadan World Cup kan daawanaynay te kanama World Cup bana looga dhigay ma dagaal ma dagaalanana ku shuqulba ku lahayn oo idinaga talagelin oo aan telefishinka waxaanu ka maqlaa war ma gelayno war ilaa aan ka heshiino oo daacadnimo iyo wax dhaba aanu ku heshiino cad oo muran ma doonta war dagaal aanu gelaynayo cid aan ugu hiilinayna ma jirto war xaynta yar ee ariga ee dadku haystaana war yaan lagu loo farin war xaynta yaan lagu loo farin waroy ruwaayaduhu way iska badan yihiin xaynta qudhadeedu exposure badan bay heshayo maalin walba tiyo 4 riyaad aad ba kala baratay oo midda gees jaban iyo midda barabareel aad baratay yaa marba meel la soo tubaya waroy kuwaana waa u sheegnay war hadday xaalad abuur tahay hadday been tahay hadday saxaafad tahay hadday tahay waxaan jirin oo ruwaayadoo la dhigaya war cidaas waa ku fiican tahay qolyahana waa kaga fiican tahay waxaan anigu oran lahaa war danteena ha lagu soo ururo war wax gaar aanu ka rabnaa ma jirto war khaatumana kama rabto war intanu isku qabiil ma aha war intanu wadanko dhan bay ka kala yimaadeen waxana midaynaya oo ay u socdaan oo nimanka kala doodayana waa waxa guud aan wada leenahay waxaan anigu qabaa hawsha inaynu siyaasadda macruuf la isuma sameeyo war dadkaas waa dad fiican oo hogab oo nasab oo taariikh laho dhaqanka ku fiican oo war nimanka waxa halas war waxna la siiyay ma rabno war waxaanu leenahay xaq u leenahay yaan rabnaa dastuurka ay ku dhigantahay shuruuda loo baahay in yaroo xog warana war guddida day khaatumo ee markii horena 7 ahayd haddana 4 ku soo ururtay iyo odayaal iyo ismo qabaa'ilka Somaliland ee isaaq war cidaan lahayn khaatumo haddii dadka Soomaaliya Sanaag iyo Cayn haddayan Somaliland ka mid noqon Somaliland ma jirayso waa waran jiraynin war taa ka socota hadda ceelaf weyn ee nasiib darrada yaa uun Hargeysa iyo Burcana tagi doonto horena way u dhacday 495 horena waa u dhacday haddana halka ku socota war dadkan haddii ay noqon ummad dhan oo isku dhafan oo ilaa sayla ilaa maxay ahayd bixin ilaa meesha la yiraaho arladaas barigaas ceergaabo iyo wixii barigeeda war ummadaas oo dhan haddayan mid noqon oo dabaashan hadii cid gooni leedahay waxbay sumanihin war iyakana waa ku nidhaahnaa war in public iyagoo madaxdoodu joogtaan ku nidhaahnaa war waxaanu cidna uga turayna maaha war laakiin hadiiba xaajadeeni meel adag ay gashay war wixii bal sidii loo dhirin lahaa in laga tashado war dadka dhulkan jooga hadday pressure noqoto annaka wada hadalka rabna annaka qadiyadayada iyo waxaanu ka rabno annaka noocadna hor waray pressure bay ku noqonaysaa war inta isimada habar jeclo ay Muuse Biixi u tagayaan ee oranayaan
haddaadan arrinta khaatumo dhammaynin haddaayan dadkaa sool iyo sanaag iyo cayn inaga mid noqon wax inoo jiraa ma jiraan war hadda annaka macruuf goonayna loogu samayn ma iyakaa dantooda saawarka garxajis waad maqasheen oo gacan libaax buurtaa waatay fuuleen 8 qoloobay ka soo baxayna waa aragteen cidda hadda active-ka ugu badan waa dadkii reer Hargeysa waa Sacad Muuse intuna waxay leedahay haddaan arrinta khaatumo la dadajin oo la dhammaynin war inana meel ma gaadhayno dadkaana yeenan hodin colaadaan jirinna yeenan ummadda isku soo jeedin iyaka waxaan u sheegnay maalintii madaxweynaha la doortay 90% dadka sool iyo sanaag iyo cayn ama bro Somaliland bay ahaayeen ama waa u janjeereen maantana anigu tirada ma hayo laakiin 90 iyo wax dhowtoona ma allow 20 ama 30 ay tahay khaladaynu inaku galay iyo eedaynu galay iyo strategic mistakes aynu inaku samaynayna kuma iman warkayga waxaan ku soo ururinayaa qolyihii niilaas aanoo joogay xildhibaano iyo wasaaradda muddaad ba halka joogteen hawlahaana in badan oo aad ka sii ururiseen waa jira anna in badan aan ururiyay ilaa meesha iyadoo la iska laafiyoonayo looma tegayo lama oranayo saa iyo saasaanu rabnaay wixii wardaynu rabno arinta aniga iigu weyn teenaba intaynan gaadhin war wixii lagu heshiiyo ama waxa dastuurka ku yaala executive powers madaxtooyada iyo maamulka yaa ka ilaalinaya war horey noo soo martay war heshiisyaa la galay war ina cigaal baa ku tuntay ina cigaal waa madaxweyne waa fardi kuwa hadda jooga golaha wasiir madaxweynaha maanta jooga Musabbixi baa ka marxaati kacaya in markaana la idin ka gardaraa sababta aad u tagteen ee Puntland u dhisteena te waxay ahayd annaga halkana lagama rabee wax iyagaanu samaysanayna waray waxaynu la gola tagayno iyo dhaqdhaqaaq iyo hadal war cid aad uga fasax qaadantaay jiri oo cidii hadda oranaysa warana ku wada hadaladii baanu daba joognaa oo waxaanu rabnaa in la dedejiyo oo waxna qanciyana la tuso oo gudiye loo sameeyo annaku kuwa yaga waaba samaysanayna cidii hawshan qaban lahayd haday ciidamada tahay haday shaqaalaha dawladda tahay haday maxay tahay maxaakiimta haduu baarlamaanka iyo inta lagu leeyahay horay baarlamaanka miqyaas waxa uu 1960 330 xildhibaan baa waagaa jiray shan baynu ku lahayn shanta hadii loo bedelo tiradii waa la badiyay waa 280 hadda hadii loo bedelo waa 13 xildhibaan maantana Hargeysa xildhibaanada dhulkan u dhashay jooga waa 6 hadda waliba qaar baa ku soo galay niman kale oo iska dhintay in lagu bedelay ee maaha dambiga inaku qaarna waa ku leenahay oo inaka niri ismana diiwaan gelinayno vote kana ma gelayno haddaba saynu inaku khaladkeenana u saxan lahayn waroo inaku isku duuban bayno waxaynu rabna goosan karnaa waroo nin keligii bilig leh ama jilib inaka inaga ah wali la isma tirina haday yiraahaan intiina kala dhanba annaga idan ka badan war wax allaala waxay goosan karaan ma ay jirto war waxaynu wax goosan karnaa inakoo isu dhan waray iyaka kuma eedayn karno markaa siyaasadan ah ee arlada Soomaaliya oo dhan aad looga yaqaan hadda ah ee qaybi oo xukun war haday qaybi oo xukun noqoto wala karis xuniyana wax kula laana waxa la xabxabsan doona devote bay galeen waa dhaweyta halkan resultskiisina waa hayaan waxaan oran lahaa hadalkay ku soo ururinaya aad baan ugu faraxsanahay kulan inuu halka isugu nimi oo kulankii sagaalaad baarlamaanku isu yimi
qolyahan inaga maqmaqana waxaan rajaynayaa inayna soo gaadhaan waxaan rabnaa dadkeenna iyo colaadda tan halkaa ka aloosan iyo innaka iyo Somaliland waxa aynu meesha aynu ku hiranayno waxaynu inay inoo kala caddaadaan war nuxnux iyo hebel la hadal iyo heblaaye la hadal iyo reer hebel war u sheeg kuwaana war kale u sheeg meel inama geynayso kuwaana faa'iido uma leh kuwana dee laf cad bayba toobin ku hayaan kuwana nimanka hadda leh hartaana oo dhulku waa naga dhaxay wareer inta naga dhaxaysa aan isaga nimaande intayada ammaan aan idinka helo intayada aan ammaan idinka helo hadday socoto war arinta dhulka waa la hayaa taariikhdiisana waa la hayaa Ingiriis iyo Talyaani oo dhulka iman baa la yaqiin iyo ka xuduud dhigay intii maamuladaas ay jireen ama kuwa Talyaaniga iyo Ingiriiska ay noqdeen ama dawladihii Soomaaliya war annaka iyo dadka dhul isku markaa ay jirin maamul mudayar oo magaalada Taleex maxay ahayd Garowe la yiri maamul magaalo la yiraahdo la dhisaya yaa aagan kamid ah mudayar oo kooban ka bacdina meeshana yana gobolkeedii bay noqotay wax dhulo isuukaya jira ma jiro hadda macnaheedu ma aha ogasho haday daado meelana seegto war haddaba waa kuwan daaqaya kuwa aanba waligeen ba arag baan maqlaya ayna waligood dhulkan soo gaadhay yaa hadda daaqaya laguma cashuuro lacag laguma weydiiyo laguma xumaynayo laakiin aniga leh oo udubkii iyo qorigii iyo teknikadii baa wada socda war idinka akhrisan mayno waxaan anigu hadalkay ku soo ururinayaa war wixiina ku waajibkeenana aan gudano aan isna diyaarino hadda diyaarintuna waxay u baahan tahay war tabliiq siyaasi baynu u baahanaa war cidinaga akhrisana soo badan maba garanayo laakiin warkan aynu wadno war in la yiraahdo walaadii hal aan wada fadhiisano war hadaan shirweyne kii Taleex oo kale la isugu iman karayne war bal kuwo la sii diyaariyo oo hadii beela laga dhigayo hadii degme iyo intii soo gaadhaysa laga dhigayo waxay doonaysaa bahan noqoto laakiin innaku hadaynu khaatumanahay gudiye inaynu samaysano dastuurka maxaynu rabnaa inaynu ka bedelo wararka waaba ururinay qoliyo gacanta kuba hayeyna xasan muuse cawl demaba joogo waaba caafimaad xasan muuse cawl isagaaba arinta siyaasadda iyo muxuu ahaa dastuurka iyo meelaha laga abaarayo hadday tahay arrimaha kan mashaariicda iyo awood qaybsiga iyo kuwaana wax qolyihii hadda markii dawladda sheegeen waxa ka bilaabeen innaku gudiye rasmi ah oo hebel iyo heblaaya na inaynu samaysano terms of reference hawsha waxay qabanayaan u tilmaano waqtiga lagu qabanayana u tilmaano innaka degdegayne aan isdiyaarino gudiyada inaynu samaysano laba waray inaynu hadallo hadal nacnaca ma rabne meeshan garcada waa taala war garcada waxa aynu wax ku goosan karno inaynu isu diyaarino in dadkeena lagu dhiirigeliyo in dadkeena tabliiq siyaasiga aan sheegay in lagu noqdo oo lala hadlo oo meeshay wax marayaan war lagama dhargeeyo laakiin innaku war ina anfaca oo aan madara inoo lahayn oo danaheena aynu ku gaarnay u baahan dadkii in markaa loogula noqdo message-ka ama risaalada khaatumo anayna hawshaana idinka alla idmo baarlamaanka leh hawlaha una qodobada aynu rabno iyo war saxaafadeed shirku markuu inoo dhamaadana aynu isu diyaarino oo caawaba waxeena inoo diyaar ahaadeen hawsha ugu weynay meesha isu keentayna hawl baarlamaanka u gaara weeye waa hawshii mudayntii iyo hawlihii la xidhiidhay dee awal baynanba itaal badan hayne dee baarlamaanku meesha kama bixi karo annana waa usoo ducaynaynaa bal inoona dedejiya waqtina ma haysano